kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaaray daafaha caalamka khaasatan dagaalka ka oogan gobolka bariga dhexe waxaad ku maqli doontaan dood ka dhalatay wiil Soomaaliland ahaan uga qayb galay mudaharaad yaab leh oo Mareykanka ka dhacay ciidanka Suudaan oo soo riday daroon Ethiopian ah Israel oo la yaaban arrin ka socota Iran oo ku dhaqaaqday go'aan uu aad uga cabsanayay Mareykanku marka baribiyood ah oo uu Mareykanku leeyahay oo ku soo wajahan Iran xilli ay maraakiibta dagaalka ee Mareykanku ay ka qoosteen inay xitaa u soo dhawaadaan xeebaha Iran saldhigga tareenada Tel Aviv oo la duqeeyay iyo warar kale oo holac ah balse marka hore qadar idhaah waxa barnaamijkan hirgelisay makhaayadda Mandi Palace Restaurant oo marti sharafta ka dharjisa cunto muunad leh menus kala duwan iyo madal toolmoon oo intaba kaga maqsuudaysid adigoo muta meesha ay ku taalo oo dabcan ciwaanka iyo telefoonkaba shaashada ka meelacsan karto aanu ku bilownaa waxa dood dhaliyay wiil sita calanka maamulka Soomaaliland oo ka soo muuqday dibadbax kooban oo ka dhacay gobolka California ee dalkaasi Mareykanka kaas oo ay dhigayeen dad Iiraani ah oo taageersan in dib xukunka loogu soo celiyo boqortooyadii la riday ee Pahlavi oo ay haatan Israel dabada ka riixayso sida muuqaalka laga arki karo nin magaciisu yahay Benjamin Neymer ayaana soo sheergareeyay muuqaal wiilkan laga arki karo isagoo ku dul qoray Reza Pahlavi ma aqoonsanin mana taageerin Soomaaliland ilaa imika balse mudanahan waxa uu go'aansaday inuu ku biiro dibadbaxa ka dhacaya banaanka dhismaha federaalka ee magaalada San Diego tan ha xusuusiso Iiraaniyiinta ka soo horjeeda Islaamka inay jiraan dad muslimiin ah oo na taageersan ayuu raaciyay yalkeed arrintan ayaa waxa ka dhalatay falcelin qof ayaan waxa u soo qoray wax aan dani kugu jirin dhibane haw noqon isagoo la hadlayay wiilka Soomaaliga ah dhanka kale waxa la xaqiijiyay in ciidanka xoogga Suudaan ee SAF ay soo rideen diyuurad ah daroonka uu Turkigu sameeyo ee Akinji oo markii hore la sheegay inay leeyihiin falaagada RSF taasoo dul maraysay hawada Al-Ubayd oo ka tirsan gobolka waqooyiga Kordofan yalkeed waxa markii dambe hadana soo baxay war sheegaya in diyuuradan daroonka ah ay leeyihiin ciidanka cirka Ethiopia waxaana la sheegay in ciidanka xoogga Suudaan ay soo ridisteed u adeegsadeen gantaalada garabka laga tuuro ee loo yaqaano manpads dhanka kale magaalada Tehran ee caasimadda Iran ayaa waxa ka dhacday janaaso aad u ballaaran oo lagu aaseeyay Ali Larijani xogayihii hore ee golaha ammaanka qaranka Iran iyo abaanduulka ciidanka Basij Ghulam Reza Soleimani oo sidoo kale weheliyaan askartii dhawaantan lagu laayay markabka Iristayna oo uu qoosiyay gujus uu Mareykanku leeyahay 2 toddobaad waqti imika laga joogo isagoo ku shircanayay badweynta Hindiya waxaana dabcan ka soo qayb galay kumanaan dad ah oo reer Iran ah xilli waliba ay duqeyn ba'ani ku socoto dalkaasi nin Israa'iili ah oo la yaabay arrintan oo magaciisu yahay Avi Kanner ayaa ku soo qoray horta sida taliskan argagixisada ah ugu suurto gashay in uu dhacdooyinkan u soo saaro dadka inta la eg dhanka kale dalka Azerbaijan ee dariska la Iran ayaa waxa uu mar kale deeq u soo diray Iran iyadoo tani ay ka badan tahay midii uu hore u diray waana 82 tan oo u badan waxyaabaha quutul duruuriga ah Azerbaijan ayaa tiyo ay shiico u badan yihiin misna dhanka kale xiriir dhow la leh Israel oo ay gas iyo shidaal badan siiyaan dhanka kale Iran ayaa ku dhaqaaqday tilaabo uu aad uga cabsanayay Mareykanka taasoo ah in shidaalka lagu iibiyo lacag aan ahayn doolarka Mareykanka waxaana imika marka booyad ah oo ay Hindiya leedahay ku fasaxday lacagta yuanka ee dalkaasi Shiinaha iyadoo sidoo kalena ogolaatay inuu ka gudbo marinka Hormuz arrintan ayaana ka dhigan wax lagu sheegay in Iran ay duqeysay petrodollarkii oo muddo dheer ahaa halka laga galo tamarta adduunka warqaadka Johnson Daily ee dalkaasi Shiinaha ayaa isaga oo soo xiganaya CNN waxa uu inta raaciyay in Iran wada xaajood kula jirto 8 wadan oo dheeraad ah oo ay kula gorgortamayso in haddii ay lacagta yuanka bixiyaan ay u ogolaanayso inay ku shiraacdaan ama maraan gacanka ciriiriga ah ee Strait of Hormuz dhanka kale Iran ayaa si xun u burburisay saldhigga tareenada Tel Aviv ee loo yaqaano Savidor Central iyadoo waliba ku garaacday gantaalaha sida rasaasta loo yaqaano clusterka ee si kala baxbaxda ee halista ah wakaaladda tareenada Israel ayaa waxay sheegtay in saldhigga si kumeel gaar ah loo xiray burburka soo gaaray awgeed sidoo kale dabdamiska ayaa la tacaalayay dab ka kacay gantaalo lagu garaacay faras magaalooyinka Israa'iiliga ah ee Petah Tikva iyo Kafr Qasim dhanka kale markabka baribiyoodka ah isla markaana xambaara diyuuradaha ee USS Tripoli oo ay saaran yihiin ilaa 2500 oo badmaaxe oo Mareykan ah ayaa waxa uu ka soo goostay dalkaasi Japan isagoo imika baroosin ka dhigtay dalka Singapore taasoo ka dhigan inuu 7000 oo kiiloomitir u jiro xeebaha Iran
markabkan ayaa marka laga soo tago ciidanka uu sido waxa uu sidoo kale ku raran yahay diyaaradaha jeelka shanaad ee radaarka ka dhunta ee F-35B Lightning II iyo helikobtarada casriga ah ee marwaxadaha weeciya ee loo yaqaano MV-22 Osprey. wararkuna waxay inta raacinayaan in Pentagon-ku uu doonayo in markabkani uu qabto jasiiradda Kharak Island oo 90% ugu yaraan laga dhoofiyo shidaalka Iran berdhaweedna uu Mareykanku duqeeyay. yeelkeeda arrintan ayaa kusoo beegmaysa xilli ay maraakiibtii kale ee waaweynaa ee dawladda xambaari jiray sida USS Abraham Lincoln iyo baandada la socota ee wax burburiya ay ka xabeen inay u dhawaadaan dalkaasi Iran iyaga oo markii aanu baarnay iminka 1,100 kilomitir ka durkay xeebaha dalkaasi Iran iyo gabi ahaanba gacanka Persia iyaga oo ka cabsanaya gantaalaha baalistiga ah iyo daroonada Iran. dhanka kale helinka Sky ee dalka Ingiriiska ayaa ka noqday heshiis uu la galay dalka Imaaraadka Carabta oo wada shaqayn ah sida uu qoray warqadka The Telegraph ee isla Ingiriiska. Sky aana la sheegay inuu la noqonayo laysanka Sky News Arabia kadib markii Imaaraadka lagu eedeeyay inay adeegsanayaan dacayad isla markaana ay qarinayaan xasuuq iyo meel ka dhacyo ee kooxda Rapid Support Forces ama RSF ay ka geysteen dalkaasi Suudaan taasoo ah maleeshiyad arxan daran oo Imaaraadku taageeraan sida ay ku warrameen hay'ad sirdoon oo reer galbeed ah. dhanka kale ciidanka cirka Sacuudiga ayaa sheegay inay qabtaan gantaal ballistic ah oo Iran ku soo riday saldhig ciraadka Prince Sultan Air Base oo ay ku sugan yihiin ciidamada Mareykanku walow muuqaalo cusub oo dhinaca dayax-gacmeedka lagu qaaday ay muujinayaan in meelo badan laga duqeeyay saldhigan Sultan Air Base gaar ahaan dhismayaal ay ka mid yihiin hangarada garoonka goobaha agabka lagu xareeyo gabaadyada meel lagu jimicsado iyo xitaa goobaha kabka iyo dayactirka loogu talagalay ee saldhigan. ugu dambeyntiina aragtida dadka Mareykanka ee dagaalka Iran ayaa imika isbedelaya waana sida uu soo qaatay helinka bidixda ah ee NBC ay haweeney sheegtay inay 3 jeer u codeysay Donald Trump ee imika ku tilmaantay inuu yahay qashin bila qiimo ah iyaduna ay doqon tahay hadiiba ay ninka 3 jeer dooratay. dadka Mareykanka ayaa la fahamsan yahay in ay maciishadu ku qaaliyowday waxaana u raacday shidaalka iyo gaaska oo aad u dalacmay toddobaadyadii dambe tan iyo markii Mareykanku uu 28 bisha Febraayo weerarka ku qaaday dalkaas Iran. Maxamed Xaaji, Hadalsan TV. Thank you.